5 goal ay naga dhaleen Ethiopianka 5 goals ay naga dhaliyaan oo alab mid tunder ah mid waliba blusion ah mid korna ah dhowr nooc ay naga dhaliyaan waa idin sharxi doonaa annaga se waxa ka dhalinay 0 ever goal ciyaarta waxay ku dhamaatay Turkiga 5 goal iyo ever Ethiopianka raacday walaalow ha iska soo ordin aniga madaxweynaheena iyo waxayna waa taageersanaa laakiin meesha ay wax ka jiraan araba in ay faantaan horta xalay ninka guuleystay oo waliba hadda ka hor hadal laga haayo bal aidin fasaxo waa wasiirkii arrimaha dibadda ee hore Ethiopianka hadal bishii September hadal soo dhaafay uu ka horjeediyay jamciyadda qaramada midowday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa qaramada midowday gaar ahaan General Assembly-ga bishii September hadalkiis hal mar bal ila daaw President, maritime insecurity in the Red Sea and the Indian Ocean is a source of great concern for Ethiopia. With over 120 million population and significant maritime trade, Ethiopia entirely depends on the safe, secure maritime activity in the Red Sea and Indian Ocean. This region is threatened by conflicts, piracy, and other illicit activities. Over the years, Ethiopia has played an instrumental role in combating the cause of insecurity. We also continue our sida afkiisa maqlayseen waxa xalay saxiixa ku jiray ereyo ninkan afkiisa hadda ka maqasheen 3 erey secure accessible and reliable bad waxa u baahanahay afkiisa ka maqlayseen dadka Ingiriisiga aan hore fahmin saddexdan erey uu isticmaalay qaabku u isticmaalay iyo jumladii ayadoo sideeda ay xitaa edit lagu sameeynin aan lagu soo daray heshiiskii xalay madaxweyne Xasan Sheekh uu saxiixay ee uu la saxiixday ninka la yiraahdo Abiy Ahmed bad dhagaha hal mar dhagaha fura bad aanan muran la gelin karin waa hadaa warka idin soo koob safe secure reliable iyo maxaa la sustainable isku soo koob ana Ingiriiska saxda idin fasiray bad aanan muran la gelin karin ayaan u baahanahay muran aan la gelin karin macnaheedu waxa waay adiga ii sharaxbo bad aanan muran la gelin karin oo quuq iyo qayle iyo ay ka daba imaan karin ayaan u baahanahay ayuu ninkaas hadda afkiisa uu ka dhahay sidoo uu dhahay loo soo qaaday Abiy Ahmed ka dhaadhiciyay intaas in lagu daro warqadii madaxweyne Xasan Sheekh iyo way akhriyeen laakiin macnaha ku jiro ma fahmin gool tuun dheer ah oo macaan ee xalay naga dhaliyay nacla baqtigooda ku yaal bad aanan muran la gelin fiiri hadda ka hor dadka ayaga noo sheegay bad ama xeelad ama dagaal mid waa ku qaadanayna ayna dhaheen xalay qaab xeeladeysan oo haddana dagaal ah ay badin nooga saxiixdeen reer Baraawe reer Kismaayo reer Hobyo reer Saylac diyaar garoowa 4 dekadood Ethiopianka saddexdaas ereyada maqlayseen safe secure iyo sustainable ay ku qaadan rabaan macnaheedu marka maxaa waay bad aan muran la gelin karin macnaheedu muxuu yahay fiiri badaan markay ragaan sameystaan oo la siiyo oo ganacsigooda iyo balaayadoodii ay ka soo degsadaan waxay u baahan fiiri wa hal mar kale hadalka ninka odayga ah maxaa ku jiri aka dhex maqasheen President, maritime insecurity in the Red Sea and the Indian Ocean is a source of great concern for Ethiopia. This region is threatened by conflicts, piracy, and other illicit activities. Over the years, Ethiopia has played an instrumental role in combating the cause of insecurity. Ethiopia ku yiri badan way difaacday yani wuxuu ku leeyahay Ethiopia badan waxa laga sheego dhahay qalalaaso burcad badeed iyo qashin waxa si dunida galiyeen marka dhagaa inaan furtiin araba dhalinyarada meesha heshiiska halista ku jirta araba inaan sharxo badan uu ku yiri halis ayaa ku jirta halistaas Ethiopia wala dagaalantay yani burcad badeeda Soomaalida iyo argagixisada iyo waxa ay sheegayaan marka ninkan wuxuu taagan yahay bad amaan ah oo la isku haleyn karo macnaheedu waxa waaye badaas duusan ciidan la soconin oo navy maraakiib waaweyn maadaama hadda Soomaaliya anaga maraakiib iyo dagaal iyo balaayo ay qabin Ethiopianka badan loo saxiixay saddexdaas erey macnaheedu waxa waaye badda ganacsi ahaan ay u isticmaalayaan navy-gooda maraakiibtooda dagaalkana way joogayaan waaye haddaadan muuqaalkan maalin waa daawan doontaa asagaba ku dhahay baa macnaha adiga qaabkii wax u fahantaa horta adiga waxa inta iska dhigaysatid ma iska carartaa walaalow critical thinkers noqda dad maskaxdooda ay shaqeyso fikiri karo oo waxaan analyze gareyn karo ereyga afka ka soo baxayo micnihiisa fahan laakiin macnaha maxaa ku sii doogan fahan ana hadda idin sheegayo
badda la saxiixay waa bad ganacsi iyo bad military oo isla socoto waaye maxaa yeelay Etoobiyaanka asaaba afkiisa ka dhahay baddaas halisa ku jirto burcadbadeed oo badaha meelaha uga halista badan ayuu adduunka ka dhaadhiciyay saddexdan ereyna micnaheedu waxa waaye baddaas waa imaanayaa ciidan aniga aa wato oo navy ah oo aan Soomaaliya halis ku ahayn lagu lahaa waxaan argay aan meesha joogaayo markay galeydoodii iyo qashinkoodii ay la soo degaan markab weyn oo sida kan hadda Turkiga noo imaaday oo kale oo gantaalo waaweyn ay saaran yihiin oo ciidana ayaa meesha joog 5 gool ay naga dhaliyaan marka taas horta ilfaanta u maleena 5 gool ay naga dhaliyaan 5 gool waxa waay ciidamada Etoobiyaanka in laga saaro dalka waa diidnay way joogi doonaan sidaas awgeed Abiy Ahmed kursigiisa wuu u badbaaday oo ciidamadan Soomaaliya jooga hadii laaban lahaayeen qabiilooyinka iyo maxal ethnic jinsiyada ay soo jeedaan ormada iyo qashinka balaayada ku biir lahaayeen dagaalka meesha ku sii hol cilaay maadaama hadda dagaal ugu soo Etoobiya sidaas awgeed waa badbaadinay Abiy Ahmed oo kursigiisa wuu ku sii dheganaan doonaa hortaas waa ayaga Soomaaliya $2,000 bishii way qaadanayaan oo taas anaga u salaxnay mid labaad waa tan badda Aasiina waaybo tan saddexaad Soomaali galbeed oo dhul Soomaali ah waxa uu ogolaanay Etoobiyaanka ama uu aqoonsanay Etoobiyaanka in dhulkaas Soomaali galbeed ay kamid tahay ama uu kamid yahay dhulkaasi dhulweynaha Etoobiya waa uu aqoonsanay macnaheedu maxaa waaye ninka kale oo qadiidiisa aqoonsanay macnaheedu maxay tahay Soomaali galbeed waa ku deys waa qiyaano qaran ah ku sameynay ummadaas masaakiinta ee Soomaalida meesha deganeed ee intaas soo jabhad ahayd oo xornimo ka rabtay dalkaas inay ka go'do rabtay warta kareeya go'ay Soomaalidii dhulkaas oo anaga aan lahayn oo Ingiriiska sida qaldan uu Etoobiyaanka u siiyay waa uu ogolaan Etoobiyaanka inuu qaato ma fahanti waaye goosha kale ee naga dhalayna waxay tahay waxa uu aqoonsanay ciidamadooda ciidamada Etoobiyaanka inay howl fiican qabteen gabdhihii ay kufsadeen dhulkii xoog ay ku qaateen ee laboorada xoog ay ku fadhiyaan dhibaatooyinka ay geysteen dhalinyarada maanta xaniinyaha ilaa hadda la oo magaalada Muqdisho si xun loogu galay fooriyayihii wixii oo dhan waxa uu aqoonsanay Etoobiyaanka inuu shaqo fiican qabtay ayaan u aqoonsan Soomaaliya ay isdeeno warsaan tala ma ahane walaalayaalow ay isdeeno